السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنا وعنا وناكسن إذلكين بس دعوة المال والبواء جوكتان كسر دعوة وركي وجودن بالصومالي يا عالم كوحين وكب الله بدورنا. تلي كوعجن كي وريه هذا نبض سجدة يسردون كقرن كصوماليا إسماعيل داهر عثمان يا وحى وكهل لحالة أمان إدلك كرهنا بيكسي قلقوها يا مسؤولين الدولة الصومالية. إسماعيل داهر يا وحى وشاع كقاضيه إن أمن دردها تنجرته يا بيكسي مسؤولين الدلك أي كرشين isqabqabsiga madaxda dawladda isla markaana ay kooxda al-shabaab ayada oo ka faa'iideysanaysa ee kordhisay weerarada qaraxyada ah beegsiga mas'uuliyiinta dawladda ee kooxda al-shabaab ma aha mid hadda bilowday balse bilooyinkii dambe waxa aad u xoogeystay isqabqabsiga siyaasadeed ee ka dhaxaysa madaxda dawladda ayada oo su'aal laga keenay cidda iska leh mas'uuliyadda amniga ayuu yiri taliya ku-xigeenkii hore ee hadda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya sidoo kale wuxuu intaasi ku daray taas ayaa keentay in kooxda al-shabaab ayaga oo ka faa'iideysanaya isqabqabsigaasi in ay fuliyaan weeraro ismiidaamin oo noocaani oo kala ah taliya ku-xigeenkii hore ee hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya ee NISA ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in ay meesha ka baxday hay'addii nabad sugidda ee la rabay in ay ka hortagto qaraxyadaasi sida uu hadalka u dhigay waxaa meesha ka baxay hay'addii sirdoonka ee la rabay in ay samayso ka hortagga falalka amni darro ee kooxdan la beegsato mas'uuliyiinta dawladda ayuu sii raaciyay hadalkiisa ugu dambeyn wuxuu soo jeediyay xukuumadda Soomaaliya ee uu hogaamiyo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble inay la wareegto mas'uuliyadda oo dastuurka u siinayo amniga gudaha iyo dibadda waxaan kula talin lahaa xukuumadda kumeel gaarka ah in ay la wareegto mas'uuliyaddeeda dastuuriga ah amniga gudaha iyo dibadda labadaba ayuu hadalkiisu ku soo gabagabeeyay taliya ku-xigeenkii hore ee hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya ee NISA hadalkan ayaa waxa uu ku soo aadayaa iyadoo maalmihii u dambeeyay ee kordheen weerarada ismiidaaminta ah ee lagu beegsanayo madaxda ugu sarsareysa ee dawladda Soomaaliya waxaana ugu dambeeyay qaraxii lagu dhaawacay afayeenka xukuumadda Soomaaliya mudane Maxamed Ibraahim Macalimow oo dhaawiciisa haatan lagu dabiibayo isbitaal ku yaala dalka Turkiga dhinaca kalena Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor madaxweynaha maamulka Galmudug ayaa waxa uu bilaabay qorshihii uu doorashada ugu boobi lahaa madaxweynaha waqtigu ka dhamaaday ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaana caqabad culus uu hordhigay musharaxiinta kuraas doonka ah ee dhawaan gaaraya magaalada Dhuusamareeb ee xarunta maamulkaasi waxa uu shalay maamulku ku soo rogay dadka kuraasta u doonanaya Galmudug in ay soo sheegaan ka hor inta aysan halkaasi tagin waana qorshe la doonayo in Galmudug looga hor istaago musharaxiinta Farmaajo ka fikirka duwan Qoorqoor ayaa hadalkan u soo dhiibay gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda magaalada Dhuusamareeb Cabdi Xaashiib kaas oo sheegay in arrintaasi ay caawinayso amniga magaalada isaga oo xusay in ay guryo u kireen doonaan musharaxiinta kuraas doonka ah kadib marka ay maamulka la soo xiriiraan taas oo ah shaqo aan maamulka u oolin isla markaana aan ku qornayn heshiiskii doorashada ee la gaaray durba siyaasiyiinta kuraasta u doonanaya Galmudug ayaa talaabadan ka cabanaya waxaana ay isweydiiyeen in maamulka uu isku bedelay dalaal guryaha kireeya iyo in kale waxaase qorshaha Qoorqoor ku macneeyeen mid uu damacsan yahay in uu ku boobo kuraasta aqalka hoose ee taala Galmudug Qoorqoor oo ah hoggaan ku fashilmay isku haynta shacabka Galmudug ayaa wali u muuqda inuu u nugul yahay awaamiirta kooxda waqtigoodu dhamaaday ee ku sugan Villa Soomaaliya waxaana xusid mudan in isaga iyo lafta gareen ay diideen in amniga dalka lagu wareejiyo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble kadib markii uu maamulku shaaciyay qabashada in ka badan 20 kursi oo aqalka hoose ah waxaa kordhay cadaadiska Qoorqoor uga imaanaya Farmaajo iyo Fahad kuwa oo aan ku qanci doonin in ay Dhuusamareeb ka soo baxaan xildhibaano ka soo horjeeda fikirkooda kale talisnimada ah